shaqaladuna laba shaqay hayaan iyagu waa si u falka iyo faryeelada iyo gaariyeyaasha bulshada oo la taabageliyo ama la dhaqan geliyo ama la fuliyo taamineed waxa weeyaan qaarra waa labaalay qaarra waa halay Soomaa soddon iyo kow alla fariisan waa tiinta tiri way haddii allu yiraahdo marka waxa isleeyahay wax la yiraahdo tibxaha farta Soomaaliga tibxaha farta Soomaaliga ay maxay yihiin sida caadiga ah aynu naqaano waxaan naqaanaa xarfo Soomaha ba iyo ta iyo ja iyo xa bataaja wala Soomaa bataajada berigii macaamada macallinkii koowaad farta ku qabanayay bataaja soo ku wareen bataaja qadarasa shadacaaga faqakaala manawaaha ya Soomeen bataaja qadarasa wala inoo la qiimeeyo maanta waxaan isleeyahay iyaga iyo say u falgalaan iyo say isu diidaan iyo kuwa kala carraysa oo la isku soo celiyay iyo kuwa isla qaysa loo kala fujiyo alaabo noocaas isleeyahay hadii Ilaahay yiraahdo haddaba sida caadiga ah waxa jira wax la yiraahdo dhaqanku markaa waxa weeyaan dhaqanku markaa shan weel buu leeyahay shan weel baa dhaqanka lagu shubaa bulsha meel ay joogtaba shan weel baa dhaqanka ku shubataa shanta waxa kamid ah afka isaga u burtuura afku si guud afku hadal baa u weyn oo language ama luqa marka muxuu noqonayaa afku hadalka Soomaaliga afkuna waa ki laba u sii qaybsamay noqday hadal iyo hawraari waa tii wariya sheeka noqotay hadallo waa ki tixiya tiraam noqday tixi waa tii اللهم صل على محمد سوغان يا سقرده نقطي سوغان تنا واتي مغالا سي نقطي waxaas oo dhan inagu haysanna waa afkeena ku hadalla ayuun baa la yiri warbaalka qalan loo qaado qalan markii loo qaaday waxay u baahatay in cod walba oo aynu niraahno ama codadkeena kala duwan dhamaantood sumad loo sameeyo sumado in loo sameeyo ariga wala sida Soomaha ta alif baa lagu dhigaa islaantii cambaraa leh taana dhagjeex baa leh wiilkeena soo kacayaa leh mid halkaas mid boodada ku taala cambara wiris baa leh waad garatay ma wala waasutay Soomaa sidaas lamida ayaa afka codadkiisa loo suntay maxaa la yiri ba waa cod sumadu sameeya tan kalena waa cod sumadu sameeya kan kalena waa cod sumadu sameeya kadibna waxa soo baxay wax loo yaqaano tibxaha farta Soomaaliga iyaga weeye marka kuwa aynu maanta ka shaqeey doono hadii Ilaahay yiraahdo markoobaad xogay qeexnimo isleegi doonaa Allahumma salli ala Muhammad waxaan isleegi doonaa hab qoraalka tibxaha meesinada tibxaan isleegi doonaa tibxaha aan eriga ku dhamaan beeganay waxay yihiin Allahumma salli ala Muhammad isleegi doonaa shaqal oo eekayaashin isleegi doonaa alla xeerka ismaqaatayaashu xeer balaaran isleegi doonaa tibxaha cuslaada iyo kuwa laba laama iyo sababtii cuslaaday iyo kuwa sababtii loolaneen ayaan isleegi doonaa inta waxaan raaci doonaa tirada wixii aan ka gaaro hadii la yiraahdo waxa isku dayay waqti la siiyay inaan ku soo koobo si guud tibxo si lamida siyaabaha afafka kalaba u dhisan yihiin afka Soomaaliga waxa uu ku dhisan yahay qaab ka kooban codad iyo dhawaaqyo codku waxa weeye baa lagu yiri sanqadha ka dhalata cunaha inta kadibna carabka iyo dhawaajiyaashiisa ayaa gedgediya oo u bedela siyaabo kala duwan waa taaba noqotay waa taabu noqotay waa taabi noqotay waa taata timi waa taatu maarata hada kuwa marxa la yiraahdaa codad baa la yiraahdaa codadkaasi waxa ay ku gudbaan hanaanka afjaaqa waxay waa hadalka afka yeerka aynu kana isku malqayno hadalka tilmaanaha jira Soomaha hadaan saa ku raaxo waxaan u jeedaa Soomaha hadaan saa ku raaxo waxaan u jeedaa Soomaha hadaan saa ku raaxo waxaan u jeedaa Soomaha oo fahmaysaa sidaas lamida ayay taasina afu tahay kanay ku hadlaynaad ma qasaanahay af u yahay marka waa mid kamid ah qaybaha afku leeyahay afjaaqaasi iyo ku gudbaan sidoo kale waxay ku gudbaan marka qoraalka de Soomaa wadi akhriya saantii cambarawis salaamay suuqa ka timiyo jidka markay mareysay lugu bay ka jirto wayaan inna lillahi hada maarta ugu dambayn tibcuhuna waxa weeyaan sumada iyo dhawaaqyada afka iyo eriga Soomaaliga ee dhaladka ah waa astaamihiisa lagu asteeyay codadka kala duwan iyo dhawaaqyada kala gedisan madarta codadka markii la wada helo liir intaas cod baa leenahay maaha
inta noocada soo qabta dabadeedna maxaanu ka yeelnaa gebigoodaba mid iyo sumad u dhiga kaa hebel u bixiya kana heblaayo u bixiya kana hebel u bixiya saa daraadeed bay ku yimaadeen tibxaha aynu naqanee baataajada intaana bilaabin habla waxaan weydiinayaa tibxaha baataajadu imise ka kooban tiradu waa imisa 31 alla fariisan waa tirada tiri afku soo saarayay macaan ma sha Allah haye ama rumba waa imisa سكون شكيم هرج أصدق شكيم عين كا أي شيء يصير صحاب كوبي صدق كاس تبحث أي جرا كوبي صدق كاسي تبعها فرت الصومالي قاهي وحيوقع الصومال لما واحد شغال لنا قناه واحنا شيبنا يلبلا يلا سوما شيبنا يلمح له بحي وشيبنا محل له بحي ويا مسين سواه الله يباء ما تاء ما سواه الله مرة شغل من راعي ما شاء الله وصحة سواش الدوري هذا الهلا حضبا مركا أي وريس قبل قلنا كي طلع مركا أي تاسيتات هاي سوا بق سماها سوا بق معها تنوع حي مركا وي بابا أمس ما يوم بابا أمس كم دواشين إلا كدواشين بانت وهاي وقضب هاي هقول لك قرر labadan maxaad ku gartaan shaqal baa raacay ma sha Allah marka ku dhawaaqay xanaana tan ba tana iska amsana way la soo way sida caadiga ah tani marka ay tahay ay taasina ba tahay ila way ku dhawaaqnaa ka baqinay war maxay dabacday ina jabtay doonaysaa way iska galagdanaatay marka ay sidaa yihiin tani marka ay sidaa tahay waa sumadii codka ba kaliya tahay waa sumad Soomaad garan tay marka taa tahay waa sumad jay marka kaliya joogto waa sumad tan kale marka kaliya joogto waa sumad dhamaantood marka hore waa wada sumad waliba maxay sidaa cod sida ay sumada u tahay codka si looga dhawaajiyo halka inankaas sheegaye waxay u baahan tahay codkii laga dhawaajiyo ay mid waliba u taagnay Soomaha saa daraadeed baa la raaciyaa shaqaladu tibxaha aan u jeedaa shibanayaashu waa kaliya ta hal shaqo oo ah inay cod sumadu yihiin waa 22 laba waaxood baa loo qaybiyaa qaar mohoraa la yiraahdaa qaar kalena milayaal baa la yiraahdaa milna maxaa looga jeedaa labo halka mohora tahay mid taamineed waxa weeyaan qaarra waa labaalay qaarra waa hal Sooma qaar waa labaalayo laba ka kooban yihiin laba sumadood oo ha iyo wala isu geey ka amsay noqotay kha da iyo ha bala isu geey maxay noqotay da sa iyo ha bala isu geey maxay noqotay sha saddexdaas mohora la yiraahdaa maxaa soo haray 8 iyo 10 kale waa 12 ma ahayn Sooma 8 iyo 20 ka soo haray 8 iyo 10 ka soo haray mohora la yiraahdaa waa kali marka ay sidaa yihiin koob iyo 20 ka shimbare waa sumad waa sababta loo yiri shib way aamusan tahay waa shibana la yiri way aamusan tahay macnaheedu oo waa sumad kaliya shaqaladuna laba shaqay hayaan iyagu mar waa sumad oo cod a la yiraahdo taagan tahay mid e la yiraahdo taagan tahay mid i la yiraahdo taagan tahay mid o la yiraahdo taagan tahay Sooma mar waa sumado mar kalena waa ka dhawaajiyayaasha shibanaha codkii ku jiray oo sumada u ahaa si looga dhawaajiyo oo looga yeersiiyo ayay u yihiin cidii ka yeersiinaysay taamicnaheedu waxa weeyaan taas iyadoo ay sumad tahay oo ay shib tahay aamusan tahay ayaynu ku daranaa say noqonaysaa te waad fahamtay maaha waxa inta soo raaca shaqaladuna iyaguna waa labada qaybood oo qaarna way gaagaabiin qaarna way dhaadheeriin Soomaha maxay tii islaanta yeesisi maxay lahayd Allahumma salli ala Muhammad shaqal toban weeye shaqaladu shani waa tira gaab ta to shana waa la taagaa oo midwahe tilmaan gaar leedahay waxay tiri taama barana hada waa ta labaad ay ku sheegaysaa moogti taama barana tii aan ka soo tagnay ta labaad ay ku sheegaysaa tuutabiye sooyaal maxaa ku jirta tuudi Sooma tee ayay tahay to ma barana hadaba
طبعا كشقل shaqadoodu waa inay codad horta ka sumadu yihiin shaqadooda laba ah yana waxa weeyaan shibanayaasha halka tubnaay dhakada waaweynaa aamusnaa inay ka dhawaajiyaan hadla shaqadii la idin diray qabta taawaad garatay soo maaha sidaas si lamida shibana shaqalku markuu kaligiisa una yahay oo halkaas ka taagan yahay mar waa sumad hadduu mid raacu dhawaaq yahay markuu sumad yahay isaga ka dhawaajinaya marka waa isaga ka dhawaajinaya yanu diraa wala isku wadiraya ya shaqadiisa qabta firkinka shaqadiisa qabta kana wadnu istaagay firkinka shaqadiisa qabta firkinku waa hakad ka yara sare soo madarag war hakad yara hakad sare maartay laaban soo markaad qoraysi soo ma tiraadid allahumma salli ala muhammad su'aal soo ma artika soo maaha uqdan kan hamsahani tano ka yeersiinaya soo ma gar halkii hamsu ku jira saadaradeed iyagana waxa ka yeersiiye ka hadlaya waxa weeyaan firkinka waa sababta dadka qaarkood u yiraahdaan firkinku waa tibix kamid ah tibxa oo labi sidoo uga dhigaan oo maxaa wacay bay yiraahdeen de soo kan sugu maaha shaqo yeedin ma hayo koon uu ka duwan yahay waa dood kale laakiin iyagana kuwaas ka dhawaajiya caynka markay tahay oo ay halka joogto oo aynu intaas la garanay inay waxba koob iyo 30 yihiin koob iyo 20 shibana yihiin ay aamusan yihiin laba u qaybsamaan oo saddexna gaar ahaayeen 18 gaar ahaayeen wuxuba ay aamusnaayeen intubana ay ka dhawaajiyaan shaqaladu sidaas la mid ah shaqaladu ay yihiin sumad cod u taagan iyagana uu ka dhawaajiyo firkinku cod ka keeno waxaan idin weydiinayaa marka aynu bartaa ku aragno aynu soo aragno waa ta oo inta aragno waa ba oo inta aragno waa ca maxaynu markaynu isha saaw saaray u oraweyn sawax ka yeeshay shaqaluna ma maxaynu u isaga oraweyn oo maxay u oraweyn maxay isaga oraweyn way daacada ka wadin maxay isaga oraweyn ama ba isaga oraweyn markay indhaha saaw saaray dhawaaqi waa maqan hay markaynu iminka markaan caruurta u dhigayna ma u sheegayno waxaan taas waa ba Soomaa maxay waa bi ugu sheegayni ila aabay la soo hadana markaa Soomaa waxa la yiri shaqalka aadu waa sayidka shaqalada mar kalena waa tibixda ugu badan hadalka ku jirta hadda bartaas raab buu ka soo qaad waxa dhex qotonta ilaahay buu keenaya Soomaa xarafka ugu badan soo noqnoqda waa isaga sida daraadeed waxa si la isla qaatay si macna weeyaan adigu garanayna odayaasha hore isla qaateen in ka laga wada dhawaajiyo marka ay sumadihiin si loo fahansiiyo yaryarkii raade yaryarkii maxay u sheegay dad soo artid baashu aamusadii Soomaa mid oran loo ba si ay u fahmaan waa ba walaad cod u sheegtaa codkii hadaad mar rabbu ugu sheegto mar rabbe ugu sheegto oo iyaga daba koraya ilaaha allah ka baqo sarana baabeed ma taraba bi baashi maana meel fadhiisanayn Soomaa saa daraadeed waxa la isla qaatay in aadu noqoto yeeriyaha ama ka dhawaajiyaha guud ee tibxaha waayahay inta aan sheegay waxa dhaamaha ku qoran marka la isku daro koob iyo 30 kaay mid waliba waxay gaar u leedahay 10 dhawaaq soo ba hala ma taagna mar waa maxay waa ba mar waa bi mar waa be mar waa soo shay yar maaha shan dheer ugu dar mid waliba waxay leedahay marka 10 dhawaaq 10 ka dhawaaq marka lagu dhufto koob iyo 30 go'imsa waa 210 dhawaaq buu leeyahay marka tibxaaf Soomaaligu hadii la raaciyo kii firkin kara waa 200 iyo koob iyo 10 dhawaaq tuugna ma xado